gudoomiyaha dib u xoreynta dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa soo gaaray magaalada Qaahira ee xarunta waddanka Masar. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka soo kicitay dalka Eritrea caasimaddiisa Asmara asagoo shantii subaxnimo ee xilliga Qaahira diyaaradii waday ay soo caga dhigatay airportka caalamiga ee Qaahira. Sheekh Shariif ayaa socdaalkiisa ku weheliyay Dr. Umar Imaan Abubakar oo ka tirsan golaha sare isbahaysigaasi. Sheekh Shariif ayaa habeenkii xalaytaha khudbad xamaasad leh ka jeediyay macadka daraasaadka Afrika ee hoostaga jaamacadda Qaahira, iyadoo halkaasi ay ka soo qayb galeen aqoon-yahano culamaa u diin haween soo buuxdhaafiyay hoolkii jaamacadda. Sheekh Shariif ayaa sharaxay siyaasaddiisa guudnimo ee ururka dib u xoreynta dalka Soomaaliya. waxauna tibaaxay in maalmahan dhibaato iyo gumaad aan xad lahayn ay ka geystaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ciidamada Itoobiya. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in hataa in ciidamada Itoobiya aysan dadka Soomaaliyeed aysan ku nabadgelin goobaha xurmada leh ee lagu cibaadeysto. أيضا جرائم حرب وجرائم إبادة تحدث من قبل القوات الإثيوبية والميليشيات العميلة. وآخر هذه الجرائم كانت تلك التي حدثت في دور العبادات والمساجد، المسجد الهداية الذي يعتبر من أكبر المساجد في العاصمة الصومالية، وكانت تدير شؤونه جماعة معروفة بسلمها ودعوتها. dhanka kale gudoomiyaha dib u xoreynta dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu daboolka ka qaaday in magaalada Muqdisho ay u jiraan wax ka yar 90 kilomitir, asagoo tusaale u soo qaatay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Sheekh Shariif Sheekh Axmed dhanka kale waxa uu tibaaxay in goobaha ay ka taliyaan ay tahay mid ay ka jirta nidaam iyo kala dambeyn, iyadoo dadka habeenkii xalaytaha Sheekh Shariif ay ku qanacsanaayeen hadaladiisa inta badan oo ku qudbeynayay asigoo fursad u helay oo ay tahay markii koobaad uu khudbad ka jeediyo jaamacadda Qaahira macadka daraasaadka Afrika ee hoostaga jaamacadda Qaahira. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa lagu guddoonsiiyay bilad sharaf oo guddoonsiiyay macadka daraasaadka Afrika ee hoostaga jaamacadda Qaahira, waxaana guddoonsiiyay Dr. Maxamuud oo ka tirsan maamulayaasha jaamacadda macadka Qaahira qaasaan qaybta daraasaadka. biladan noocan oo kale ah ayaa horey loo guddoonsiiyay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, waana markii labaad uu fursad u helo Sheekh Shariif Sheekh Axmed inuu soo gaaro magaalada Qaahira ee xarunta waddanka Masar, asigoo joogi doona ku joogi doona booqasho aan tira cayiman lahayn. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la filayaa inuu kulan la yeesho madaxa muqaabaraadka waddanka Masaarida Umar Suleymaan iyo qaar ka tirsan saraakiisha sarsare ee xukuumadda waddanka Masaarida. Mahad Carab Wali, TV-ga Universal, jaamacadda Qaahira, Giza.